gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudana Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta kormeeray isbitaalka hooyada dhallaanka ee gobolka Banaadir oo si bilaash ah loogu khidmeeyo bulshada caasimadda. kormeerkan waxaa duqa magaalada Muqdisho ku wehelinaya wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiye Abiikar Nuur iyagoo warbixin ku saabsan xaaladda isbitaalka ka dhageystay maamulka isbitaalka Banaadir kuwaas oo tilmaamay in si hufan ay ugu adeegaan bulshada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kormeerkaasi kadib waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay horumarinta adeegyada caafimaadka si bulshada ay u helaan adeeg caafimaad oo tayo leh isla markaana oo bilaash ah. indhayntii kormeerka marka uu soo dhamaaday waxa gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu warbixiyay xaaladda caafimaadka gobolka Banaadir wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Marwo Fuusiye Abiikar Nuur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحساك اسبتالك بنادر هويدا دلانكا مقدشو نغصو بوغدي قدوميها اهنا غوبرناتورها gobolka Banaadir قدومي عمر آدي آدان كاغا مهد علينا أديغا إيه هولودينادادا waxaana la joogo Cabdullaahi Cusmaan Hormuud Foundation agaasimaha isbitaalka agaasimaha ku xigeenka howladeennada dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gudoomiye aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan soo booqato isbitaalkan waa isbitaalka qaran ee hooyada iyo dhallaanka meel walba oo Soomaali ay ka yimaadaan waxa lagu daaweeyaa oo runtii ka faa'iideysta dadka danta yar ee Soomaaliyeed dadka yimaada xirxiryaha IDB-da dad aad yani dhaqaale ahaan u liita oo isku si loogu daaweeyaa waa isbitaal runtii culays weyn ka furay ummad badan oo Soomaaliyeed ay ka faa'iideysatay waa isbitaalada danta guud ee wasaaradda caafimaadka ay gacanta ku hayso saasuu yahay waxaan rabnaa in ma aragtay bulshada oo dhan isugu imaado waxaan ku soo tusnay meesha ilmaha dhallaanka markay dhashaan ee dhiciska ah lagu xanaaneeyo waa kaalmo ka timid dibadda iyo dad badan oo yani Soomaali ah ay isugu tageen waxaan ku soo tusnay meesha caruurta loogu talagalay oo jaamacadaha iyo dad badan oo mutadawiciin oo Soomaaliyeed ay tabarucaad ku sameeyeen isbitaalka wuxuu ka socdaa yani dad Soomaaliyeed oo isku tashtay waana dhiirigelinaynaa mar walba inaan u naxno aan ka fakarno dadkeena danta yar waajibna saaran waaye waa shaqadeena laakiin waajibna saaran Ilaahay dartiis waxa hadda nala jooga Cabdullaahi Cusmaan Hormuud Foundation Salaama Foundation waxa la furayaa mardhow waxay keeneen ku yani deeqeen isbitaalka warshada samaysa oxygen-ka aad iyo aad aan rabaa inaan ka faa'iideysto ugu mahad celiyo Cabdullaahi iyo Hormuud iyo Salaama Foundation guud ahaan waxay furaysaa culays weyn oo magaaladan saarna sida la socotid hirkii koowaad hirkii labaad iyo kan hadda saddexaad oo rajaynayna inuu sii dhamaado dhibaatada ugu weyn ee haysatay isbitaal Martiini iyo isbitaalkan iyo isbitaalkii Simad oo iyagana jaamacadda Simad aad noo kaalmaysa Sumeyd waxyaalihii ugu badnaa oo caqabadaha ahaa waxa koow ka ahaa in dadkeena aan u leen oxygen oo habeen walba aan ka fakaraynay dadka markay nambarka soo bataan intee la geyn doona culays ay naga fujiyeen aad iyo aad u mahadsanyihiin walaalaheen sidoo kale dahabshiil iyadana Martiini ay keenaysaa waa timid dekada waa soo gashay waa dad Soomaaliyeed oo isku tashay mar walba lagama fakari kara macaawina banaanka kaaga imaada inay ku haqabtirto umadeena ummad badan oo waxaa jira aanan awoodin isbitaalada private inay aadaan private waa lagu aflaxay dad badan ma sha Allah laakiin inaan helno dadka aad u danyar aan awoodin inaan xal u helno sidaan u daaweyn lahayn ha ahaato caafimaad ha ahaato waxbarasho marka waxaan rabaa in qof walba dawladda kamid ah aragiisa uu ku soo jeediyo war dadkaas yaan ku dhaafaynaa ee dawladda dhan isku duubnaato ee laga fikiro caafimaadka iyo waxbarashada dadka Soomaaliyeed cunug wax bartay oo caafimaad leh ayaa bulshada hore u wado bulshadeena waxay u badan tahay dad dhalinyar hadaanan ka fakirin caqabadihii waa sii kordhay marka gobolka Banaadir waxaan ka rajaynayaa in gacan weyn ay ka geysan doona waa ka soo qayb qaateen ilaa iyo markii dawladda si toos ula wareegtay wasaaradda caafimaadka waxaan idin ka rajaynaynaa inaad sii xoojisaan ay sii socoto marka cid walba ka shaqeysay aad iyo aad aan ugu mahad celinaa soo dhawow waa mahadsantahay
ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa u mahad celiyay dhammaan howlwadeenada isbitaalka gobolka Banaadir wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo cid walba ka qayb qaadatay horumar isbitaalka hooyada iyo dhallaanka gobolka Banaadir maantay waa ilaahay mahadiis warbaahinta samid waa farxad iyo reereen ay noo tahay inaan maantay booqasho ku nimaado isbitaalka Banaadir oo isagu u gaarka ah hooyada iyo dhallaanka runtiina aan taariikh ahaan ognahay waxa uu u soo qabtay isbitaalkaanu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda taagta daran muddadii burburka muddadii dhibaatooyinka gaarka ah ay jireen ama ha ahaado COVID-19 ama ha ahaado daacuunkii ama ha ahaado yacni caqabaadkii kala duwanaa macluushii oo uu la kulmayay dalkeenu runtii isbitaalkanu ma leh methal loo dhigo la barbar dhigi karo ama dalka ama magaalada Muqdisho gobolka Banaadir intaba waxa aan aad ugu farxay runtii isbitaalkii Banaadir oo inkastoo dhaqaatiirta ka shaqeysa ay mar walba dadaali jireen haddana horumar weyn isbedel fiican yani ildoogsi iyo bukaan yani dawadiisi iyo daryeelkiisi helaya si habsamay uga socdaan waxyaabaha farxad geliyay ayay ka mid tahay waxaa runtii aanan ilaabi doonin caruurta aan ku booqanay maanta isbitaalka oo ah dhammaantood caruur aan dhamays ahayn oo bila dhamays aan ahayn oo mataqaanaa sababa kala duwan dartood dhiciska u ah daryeelka loo sameeyay hay'adda dhistay qaybtaas iyo qalabaysana si gaar ah ugu mahad celinayna runtii dadaal la sameeyay ha ahaato wasaaradda caafimaadka ama ha ahaato maamulka isbitaalka ayay taasina ku suura gashay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sukow waxaan rabaa in dadaalkooda ay sii wadaan maadaama mirihii dadaalkooda maanta oo muuqdo waxaan rabaa inaan si gaar ah ayagan ugu mahad celiyo yani companiga la yiraahdo Hormuud Foundation oo meel kasta oo baahida bulshadan ay ka taagan tahay yani mar walba la garab istaagan kaalmo iyo gargaar ha ahaato gacantii weyneyd markii khalkhalka caafimaad uu ku yimid isbitaal Martini ay garab istaageen ha ahaato xarumaha ama dhismooyinka waaweyn oo isbitaalka Banaadir ay u sameeyeen oo dhinaciga midigta hadda ka muuqanaya ha ahaato warshadii oksijiinka oo ayagu hadda halkan intay ka dhiseen warshadii rakibitaankeedii lagu guda jiro intaas kaliya ma ahane qayb kasta oo bulshada Soomaaliyeed u baahan tahay wax u qabadkeeda Cabdi Fataax Xaajudiin warbaahinta samid